waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta walaalada ku xiran channelka Soomaali Network Classroom ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. waxay noo socday koorskeeni la magac baxay ITF Information Technology Fundamental. sidaa darteed videogan waxaan ku ballan qaadnay inuu noqdo exercise-kii. marka exercise-ku wuxuu ka imanayaa fahamkii aad chapter-ka ka fahantay, waana 20 su'aalood insha Allah. su'aasha koobaad, what is operating system? Operating system muxuu ahaa? Operating system wuxuu ahaa wuxuu ujeedada loo adeegsan jiray main data-da lagu process gareeyo, wax laga bedelamiya, main data-da lagu kaydiyo miya, in madbacada lagu maamulo miya. wuxuu ahaa system software. wuxuu ahaa ani kula operating system meesha ku aragtay iyo system software waa isku mid badana. system software weeyaan dadkaasoo management maamula computer hardware and software resources. khayraadka computerka iyo hardwareka iyo softwareka waxa isfahansiiya ayuu operating system tuu ahaa aan sheegi doona. su'aasha koobaad hadday waxaad noogu soo qori doontaa insha Allah, ama WhatsApp-ka noogu soo dir ama comment-kiiba noogu reeb, labadaba insha Allah waan arki doonaa hadduu Allah inoo idmo. su'aasha labaad, what is the following types in computer? kuwan soo socda afar baahan dama yaale kuweba ah personal kuweba ah computer. waxaan leenahay haddaan ka jawaabno horta anaa kala jawaabayo waxaan personal computers ku nooc ka mid ah computerada. hay waa sax, waan goobaabeyna. super computer waxa nooc ka mid ah computer isagana waan goobaabeyna. HP computers ma aha computer nooc ka mid ah, laakiin HP waa shirkad computer soo saartay si la dirtay taan ka tagina. server kuma wuxuu ahaa nooc ka mid ah computerada. marka saddex baan goobaabnay. eedu waa sax, waa nooc ka mid ah computerada. B-duna waa nooc ka mid ah computerada. D-duna waa nooc ka mid ah computerada, laakiin C-du ma aha nooc ka mid ah computerada. su'aasha saddexaad, which is the what waa maxay is the advantage faa'iida of the following features of laptop? wixii marka ka dambeeyay English akhrinayna laakiin si guud ma akhrinaa. waxa weeye la weydiiyay laptop-ku wuxuu lahaa Soomaa astaamo faa'iido laptop-ku lahaa uu computerada kale kaga duwan yahay. maxaa ka mid ah? yuu ka xawaaro badan yahay, wuxuu loo saaraya laptop-ka inaan la dhaqdhaqaaqo, yuu ka qiimo yahay, yuu ka gaaban yahay. marka ama laba shay ama saddex mid ka mid ah, laba ka mid ah ayaa sax noqon doona. kuwaas insha Allah noo goobaab doonta. su'aasha shanaad, imse jiil buu soo maray computerku? ma 5 jiil buu soo maray, ma 4 jiil buu soo maray, ma 6 jiil buu soo maray, ma 9 jiil buu soo maray? su'aasha shanaad laga yaabo inaad dadajini aad joojiysan doonto insha Allah. su'aasha shanaad, hardware components of computer. hardware components computer ka koobnaa maxay ahaayeen? ma security computer, ma computerkeenu amnigiisa u sugan miya, se waxbay kaydiyaan miya, mise waa qalabada la taaban karayo computerka, mise waa programming language? hardware components ka qeexitaankiisu afartaa midkood weeyaane ka dooro. su'aasha lixaad, what is the following units? kuwan soo socda unityada keeba ah hardware component keeba ah? hardware components ka markaan joognay waana waranay afar unit baa jira. waxa jira qalab hardware oo loo adeegsado input, waxa jira qalab kale hardware oo loo adeegsado output, qalab kale oo storage. sidaa darteed output unit-ka hardware ku kamid ah, output unit-ka hardware ku kamid ah, storage-ka hardware ku kamid ah. saddexdaas rabe saasay ku saxsan, laakiin user units kuma jirin. sidaa darteed user units-ka waan ka boodayna. su'aalaha qaarna waa kala shaqeynaya, qaarna kaaga tagaya. marka kuwan kaaga tagaya waa la socota xisaabsan. su'aasha toddobaad waxaa lagu yiri nidaam xisaabeedkii ka koobnaa 0 iyo 1 keebaha. ma hexadecimal ku ahaa, ma binary ku ahaa, ma decimal ku ahaa, ma 8 system ku ahaa? adaa sheegi doona. su'aashan adaa kaaga tagaya. low level programming language maxaa laga waday? waxa laga waday waxa u dhowday dadka computerada fahmamiya, ma waxa u dhowdahay dadka fahmamiya, ma waxa u dhowdahay network cables-ka fahmamiya, ma waxa fahma administration networks-ka fahmamiya? low level programming language markaan qeexnay waxaa luqada ayuu dhow, ma dadka u dhowaan, ma computerada dhow, ma network cables-ka dhow, ma administrators-ka u dhowaan. su'aasha sagaalaad, waxaad sheegtaa nidaam xisaabeedkii ka koobnaa xuruufta iyo nambaraanta. ma binary ku ahaa, ma decimal ku ahaa, ma octal ku ahaa, ma hexadecimal ku ahaa? su'aashaan ayaan kaaga tegay. su'aasha tobanaad, 1 byte halka byte muxuu ka koobnaa? 1 byte muxuu dhigmaayay? halka byte muxuu dhigmaayay? halka byte muxuu dhigmaayay imsa bit buu dhigmaayay? ma 10 bit buu dhigmaayay
ma 8 bit buu dhigmaayay ma 124 bit buu dhigmaayay ma 100 bit buu dhigmaayay adaa sheegi doona su'aasha 11aad marka lagu leeyahay barnaamijkaasi waa open source application macnaheedu maxay tahay ma free baa laga wadaa ma limited free baa laga wadaa oo waqti muddo xadidan free yahay miya soo laga wadaa programming core-kii markii hore lagu koorgareeyay ayaa la heli karaya soo laga wadaa barnaamijka way dadka kale loo soo diri karaya marka line open source application bal faham guud oo ka haysataa 3 4 keeba saxa su'aasha 12aad luqadii loo leeyahay C ma low level programming language ku abtirsansi mise high level mise central processing storage unit 3 keeba ku abtirsansi su'aasha 13aad one nibal ama one nibal maxay u dhigmaysaa ma 2 bit buu dhigmaysay ma 4 bit buu dhigmaysay ma 6 bit buu dhigmaysay 8 bit buu dhigmaysay waa naga sheegnay su'aasha 14aad waxaad sheegtaa computer unitka qaybta computerka ee processorku ka tirsan yahay wuxuu ka tirsanaa input unitsku ka tirsanaa processor mise outputku ka tirsanaa mise centralku ka tirsanaa mise storageku ka tirsanaa su'aashaan aad kaaga tagay haddaad garan weydo nagu soo celin karaysaa insha Allah laakiin horta aad isku soo day su'aashan 15aad waxaad sheegtaa operating systemka iska leedahay shirkadda Apple operating systemka iska leedahay shirkadda Apple ma Mac bay iska leedahay ma Windows ka iska leedahay ma Linux ka iska leedahay ma Linux operating system iska leedahay shirkadda Apple operating systemka khaaska iska leedahay kee waaye su'aasha 14aad haddii lagu yiraahdo barnaamijkaasi waa shareware macnaheedu waa maxay haddii lagu yiraahdo shareware macnaheedu waxa laga wadaa Microsoft ba gooni la miya ma waqti weligii ma xadidna miya يحددي ميا سو حلي برنامج كساود حلي إن تذكر اللي نسوي ذا shareware application هذا شيء دونا سياشة تطبيق هنا نقدر لو نجري assembly language level كبير سنة من لو level language بكتير سنة ما هاي level language بكتير سنة ما middle level بكتير سنة سمينا كمان كتير سنة نقدر لو نجري assembly سياشة ستيريا تمنات what هو محاولة with table flat نوع عدات ذا personal computer كمبيوتر كاغلا لا بي سي بيرسونال كمبيوتر نوع داتا لو فاهمه ما انا لوج داتا فاهمه ما كود داتا فاهمه ما ديجيتال داتا فاهمه ما بينري فاهمه وانا sheegtaana su'aasha 19aad dos inaana dhigin baa laga yaabaa laakiin operating system la yiraahdo jira dos oo loo soo gaabiyay diski operating system su'aasha ana kala jawaabay haddaad maqasho operating system kale yiraahdo dos حلو سيابي disk operating system DNL service na loo soo gaabin disk on system na loo soo gaabin telephone operating system na loo soo gaabin حلو سيابي disk operating system loo soo gaabiyo DOS su'aasha 12aad computer ka imsa unit buu lahaa ma 4 unit buu lahaa ma 7 unit buu lahaa ma 3 unit buu lahaa ma 1 unit buu lahaa marka 20 soo soo ku dhameystirnay dad kumatiga noogu reebtina waalkeeda oo kaaga soo joogo celina hada WhatsApp group kaga eedaantida WhatsApp ka dad nagu soo dirtina kaba wanaagsan video ku xigta ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh